neef caawiyahan macmalka ay toddobaadyo ayuu tijaabo ahaa markanse waxaa ka faa'iideysanaya bukaan dhiig la'aan iyo neef yari ay la soo gudboonaatay. waa kii ugu horreeyey oo noociisa oo Soomaaliya lagu sameeyo. maamulka cisbitaalka Banaadir ayaa kala wareegay Maxamed Cadaawe oo ah hal abuuraha hindisay neef sameeyahan aan dabiiciga ahayn. bukaanada uu soo rito coronavirus-ka kumanaanka dilay waxay la dhibtoonayaan neef qabasho. xalka loo hayaana waa in lagu rakibo neef caawiyaha oo tiro yar ay ka taalo cisbitaalada Soomaaliya, taasoo Maxamed Cadaawe ku dhiirigelisay inuu isku dayo soo saaridda neef caawiyahan iyo dhowr kale oo tijaabo ku jira. waxaan saaka soo gaarsiinay istaalka Banaadir hooyadii dhalaanka hal isku jiin oo ah kuwii naqaska bixinaya neefta siinaya dadka kaasoo aan ugu tabarucnay istaalka. ma ahan istaalka baahidiisa inuu kan daboolayo ama uu dabooli karo, waa qalab loogu talagalo oo hordhac ah. waxaan rajaynaynaa kan haddii oo anfaco sida loogu talagalo oo dad badbaadsho in ka badanba aan samaynayno, annagoo isku dayayna in ka badan in aan sameeyo oo aan si firiyan ku soo gaarsiiyo istaalka. maamulkana waxaan kala kulanay waxay ahaayeen wax wanaagsan. qofkii bukaanka ahaa loogu talagalana wuxuu anfacay sidii loogu talagalay. waxaan rajaynayaa ilaahayna ka baryayaa in intii islaam ah oo muslim ah in uu ka dul qaado dhibaatadan haysata oo hawiyarida iyo cudurkan coronavirus-ka in uu maaragtay baalkan uu wax ka qaban karo. agaasimaha cisbitaalka Banaadir Fartuun Shariif Maxamed oo dhiirigelisay hal abuuraha ayaa ashqaraar ku tilmaamtay tayada uu leeyahay qalabkan oo qabanaya shaqadii looga baahnaa neef bixiye. bismillaahirrahmaanirrahiim. maanta waxaan joognaa istaalka hooyada dhalaanka Banaadir. waxaan ku soo dhaweynay Maxamed Cadaawe oo ah wiil dhalinyaro ah sameeyay lahaa fikradii oxygen macmal ah in uu kamira dhaliyo qofka ugu horeeyana ah. runtii waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay isku day dalka gudihiisa ay ku sameynayso isla markaana faa'iidadiisa la arkay. waxaan ku tijaabinay bukaan ka mid ah maamooyinka dhiig la'aanta hayso kadibna ay u baahatay oxygen. hooyadii aan ku tijaabinay markii koowaad waxaan dhahnay maaskan aan ku xirno waxay leeyahay maaskan muxuu iga taray, laakiin markii ay tijaabisay ayadii inay ku dhagtay dhaxday wuu igu filan yahay alxamdulillah. isku daygan ayaa yimi xilli lagu jiro xaalad adag oo baahi weyn loo qabo neef caawiye badbaadin kara bukaanada neef qabatooba ee coronavirus ku haleelo. sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, hal abuurka Maxamed Cadaawe waa mid bixin kara hawo saafi ah oo badbaadin kara qofka neeftu ku dhagto, wuxuuse u baahan yahay dhiirigelin iyo maalgelin. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.